kulan wanaagsan daawade halkan waa xog cusub TV fadlan subscribe saaro like-tan inoo taabo haddii aad intaas hore u sameysay oo aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan halkan soo gelino waxaan kuu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka faahfaahin dheeraad ah ayuu booliska Soomaaliya wuxuu ka bixiyay labadii qarax ee maanta ka dhacday isgoyska Zoobe afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Sadiiq Aadan Cali doodisho shirjir ay ku qabtay magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay qaraxyadii maanta kooxda Al-Shabaab ay ka furisay isgoyska Zoobe afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in halkaas ay ka dhaceen laba qarax oo ay fulisay maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana aysan u dhicin sidii ugu talagaleen afayeenka ayaa wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyadaas la damacsanaayeen inay la beegsadaan arday ku sugnayd gudaha wasaaradda waxbarashada oo ku taala meel u dhow halka labada qarax ay ka dhaceen doodisho wuxuu sheegay inay qaraxyada qasaare ka soo gaareen dad shacab ah oo ay ku jireen caruur iyo hooyooyin ku sugnaa meesha uu qaraxa ka dhacay afayeenka booliska Soomaaliyeed uusan sheegin tirada dhaawacyada iyo dhimashada ee ka dhashay qaraxyadani ka dhacay maanta magaalada Muqdisho balse waxa uu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka hortageen isla markaana ay yareeyeen qasaarihii ka dhalan lahaa haddii uu dhici lahaa siday ugu talagaleen maleeshiyaadka Al-Shabaab sidii ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka isbitaalka ahi waxay qaraxyada ku dhintay in ka badan 20 qof halka ay ku dhaawacmeen tirintaasi ka badan dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ka mid ah taliyihii booliska ee degmada Hodan Xuseen Cadceed iyo sidoo kale wariye Maxamed Ciise Koona waxaana sidoo kale ku dhaawacmay wariyaal kale oo ka tirsanaa warbaahinta dalka iyo kan dibadda kooxda Al-Shabaab weli kama aanay hadlin labadani qarax oo ay qasaare xoog leh ka soo gaartay dadka shacabka ah oo ku sugnaa isgoyska Zoobe ah halka masiibada ka dhacday waana isla halkaas halka ay dhowr sano ka hor ay qarax noocan oo kale kaas oo ay ku dhinteen 500 oo qof wax ka badan uu ka dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta 29 bishii Oktoobar 2022 abaar 8 saac iyo 10 duhurnimo ayay khawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ahi waxay maanta qaraxyo ee la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska Zoobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saas oo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yareeyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeedadii rabaanba kala haadeen waxaa wali socda tirikoobka dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idin la soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirikoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta iyo ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina oo sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin dhinaca kalena ra'iisul wasaare Xamza ayaa war ka soo saaray qaraxyadii maanta isagoo sheegay inay ka dhigan yihiin in maleeshiyaadka Al-Shabaab ayna dad u aabayeeleen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii maanta ka dhacay agagaarka Zoobe ee magaalada Muqdisho oo dad shacab ah lagu dilay ra'iisul wasaare Xamza ayaa wuxuu weerarkaani ku tilmaamay mid naflacaari ah oo Al-Shabaab ay ku doonayaan inay shacabka ku dhibaateeyaan waxaan u sheegayaa in aanu marnaba niyad jabi doonin shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dagaalka ay dawladda Soomaaliya hormuudka ay ka tahay ee lagu ciribtirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ra'iisul wasaare Xamza ayaa Allah ugu bariyay in jannada Firdawsa uu ka waraabiyo dhammaan shacabkii Soomaaliyeed ee shuhadada ku ahaa ee maanta Al-Shabaab ay ku leeyeen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in qaraxyada maanta ka dhacay ay tusaale u yihiin hadafka guud ee maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ah in ay baabi'iyaan ummadda Soomaaliyeed iyagoo aan kala sooc lahayn caruur dhalinyaro haween iyo waliba sidoo kale waayeel intaba wuxuu markale ra'iisul wasaaruhu
uu ku celiyey in xukuumadda ay ka go'an tahay sidii loo ciribtiri lahaa kooxda alkirixsada ee al-shabaab ee gobolkoodu sii dhacayo, isagoo oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay si wada jirahay ay isaga kaashadaan ka hortagga dhagarta maleeshiyaadka al-shabaab ay u maleegayaan. Labadii qarax ee maanta ayaa ujeedkoodu wuxuu ahaa in lala beegsado wasaaradda waxbarashada oo ku taala agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali doodiisa oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab qaraxyadaasi ay la damacsanayd inay la beegsato arday ku sugneed gudaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Doodiisha waxa uu sheegay inay qaraxyada khasaare ka soo gaareen dad shacab ah oo ay ku jireen caruur, haween iyo weliba dad ku sugnaa meesha uu qaraxa ka dhacay. Afhayeenka ma uusan sheegin tirada dhaawacyadii sidoo kale dhimashada ka dhalatay qaraxaasi maanta ka dhacay, balse waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka hortageen isla markaana ay yareeyeen khasaarihii ka dhalan lahaa siduu hadalka u dhigay. Sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka isbitaalka ah, waxay qaraxyadu ku dhintay in ka badan 20 qofood halka dhaawacyadana intaasi ay ka badan yihiin. Wararka arrimaha qaraxa la xiriira ayaan ku guda jirnay. Maxamed Ciise Koonaa waxaa horey loo dilay aabihiis, hooyadiis iyo walaalkiis, isna maanta ayaa lagu dilay qaraxa ka dhacay Muqdisho. Allahu naxariistay wariye Maxamed Ciise Xasan Koonaa ayaa ka mid ahaa 10 dad ah oo maanta lagu dilay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Geerida iyo weliba qisada qoyska Maxamed ayaa saacadii u dambeeyay aad ugu faaftay baraha bulshada. Maxamed Ciise Koonaa ayaa muddooyinkii dambe ka howlgalayay M24 TV oo xaruntiisu ay ku dhoweyd dhismaha wasaaradda waxbarashada oo maanta banaankeeda hore ay qaraxaasi ka dhaceen. Wariyaasha ay wada shaqeynayeen ay iskula sugnaayeen xarunta waxay Xog Cusub TV ay u sheegeen in marka qarax hore uu dhacay uu ka soo baxay xarunta oo uu soo aaday goobta qarax uu ka dhacay. Markii uu soo istaagay laamiga waxaa qarxay gaarigii labaad oo aad ugu dhawaa isaga, halkaas ayayna ku geeriyoodeen isaga iyo weliba dad kale oo badan. Allah u naxariistay wariye Maxamed wuxuu ka dambeeyay qoyskii reer Ciise Xasan oo siyaabo kala duwan loo dilay. Mar uu wareysi bixinayay ayuu waxa uu sheegay in isaga oo yar la dilay hooyadiis iyo aabihii, sidoo kalena 2 sano ka hor ayaa walaalkiis Mahad Ciise waxaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika, kaligiis ayaana ka noolaa reerka, isagiina maanta ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho. Maxamed waxa uu horey u sheegay in aabihiis Ciise Xasan uu hoobiye ku dilay maqaayad uu fadhiyay intii ay dalka ka socdeen dagaaladii sokeeye. Sidoo kale hooyadiis ayuu sheegay in lagu dilay isgoyska Baarubax isagoo aad u yar. Walaalkiis oo hooyay aabalaan ay ku soo wada koreen ayaa lagu dilay isagana waddanka Koonfur Afrika. Wareysigu Maxamed bixiyay maalmihii la dilay walaalkiis wuxuu ku sheegay in qadarta lagu qanacsan yahay, laakiin uu aad ugu murugoonayo in waalidkiis iyo walaalkiisba la dilay oo kaligiisu ka nool yahay ilma raaciise. Beri ayaa lagu wadaa in Muqdisho lagu aaso meydka Allah u naxariistay wariye Maxamed Ciise Koonaa. Wariyihii ugu dambeeyay ee la socday Maxamed Ciise Koonaa ayaa ka sheekeeyay wixii uu arkay.